Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Waa kuwa ugu runta badan uguna daahirsan dhammaan makhluuqaadka uu Alle abuuray subxaanahu wa tacaala. Meesha ay iyagu joogaanna waxaa ka wada carara jinka iyo shayaadiintaba. Guri haddii ay degaan, ogow in gurigaas dadkiisu ay nolol deggan oo raaxo leh ay ku noolaanayaan. Waa addoomo Alle oo uu Alle subxaanahu wa tacaala qudradiisa inooga qariyay. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala ka abuuray nuurka, wuxuuna u abuuray in ay isaga ateecaan oo keliya. Mana ahan kuwo Alle subxaanahu wa tacaala ku caasinaya wixii uu ku amro, waxayna sameeyaan wixii la faray, mana galaan wax dembi ah. Waxayna soo xaadiraan oo ay isku hareereeyaan meelaha ama dhammaan majaalista Alle lagu xusayo subxaanahu wa tacaala iyo salaadaha jamaacada. Waa kuwo macaasida laga ilaaliyay oo loo yasiray taacada Alle subxaanahu wa tacaala. Waxaana Alle subxaanahu wa tacaala idinkiisa loo sakhiray khalqiga arrimahooda iyo kownka kala maamulidiisa iyo addoommada ilaalintooda iyo qoridda acmaashooda. Waxaa lagu aaminay waxyiga xifdintiisa iyo gaarsiintiisa. Waa kuwo habeen iyo maalinba Alle u tasbiixsada subxaanahu wa tacaala, mana aha kuwo ka caajisaya ama joojinaya. waxaana u daliil ah xadiiskii ummulmu'miniin Caaishata radiyallahu canha. Waxay tidhi, qaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam, rasuulkii Alle sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, khuliqat almalaa'ikatu min nuur, waxaa malaa'igta laga abuuray nuurka. wa khuliqa aljaannu min maarijin min naar, jinkana waxaa laga abuuray dabka ololkiisa. wa khuliqa aadamu mimaa wusifa lakum, aadamna waxaa laga abuuray wixii la idiin soo sifeeyey oo dhoobada ah. rawaahu muslim. Allena wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, wajacaluu almalaa'ikata aladiina hum cibaadu arraxmaani inaatha, waxay kuwa mushrikiinta ah addoommada Alle ee malaa'igta ah ku sheegeen in ay haween ama dumar yihiin. ashahiduu khalqahum, ma waxay goobjoog ahaayeen markii la abuurayay markay dumarnimada ku xukumayaan. satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun, waana laga qori doonaa waxay sheegeen, aakhiro ayaana wax laga weydiin doonaa ayuu Alle yidhi subxaanahu wa tacaala. malaa'igtu waa kuwii ambiyada Alle calayhimussalaam ka caawin jiray gudashada shaqadooda, waana kuwii rasuulka Alle sallallahu calayhi wasallama garab ku siin jiray dagaaladiisa, waana kuwii uu Alle subxaanahu wa tacaala ugu xilsaaray samaawaadka iyo dhulalka iyo dhaqdhaqaaq walba oo koonkan ka dhacaya. Allena wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, falmudabbiraati amraa. markaan ka waranno malaa'igta tiradooda, Alle subxaanahu wa tacaala mooye ma jirto cid garanaysa tiradooda. Alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu. malaa'igtu waa ciidan ka mid ah ciidamada Alle subxaanahu wa tacaala. waxna ma cunaan, waxna ma cabaan, mana seexdaan oo mana isguursadaan. waxay habeen iyo maalinba u tasbiixsadaan Alle subxaanahu wa tacaala, kamana caajisaan. laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun, marnaba kuma caasiyaan Alle subxaanahu wa tacaala amarkiisa, waxayna sameeyaan wuxuu faro. laa yasbiquunahu bilqowli wahum biamrihi yacmaluun, kuma hadlaan wuxuu rabbigooda subxaanahu wa tacaala faray mooye, wuxuusan Alle subxaanahu wa tacaala u idmin ama u fasaxinna ma sameeyaan. walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa, umana shafeeca qaadaan ilaa qof uu Alle subxaanahu wa tacaala uga raalli yahay in ay u shafeeca qaadaan mooye. wahum min khashyatihi mushfiquun,
waana kuwo alle subxaanahu wa tacaala ka cabsashadiisa awgii aad uga taxadira awaamiirtiisa iyo nawaahidiisa. malaa'iguhu isma guursadaan mana isdhaldhalaan, waana kuwo shahawaadka iyo dembiyadaba laga nasahay, mana ahan kuwo labnimada iyo dhadignimadaba ku sifaysan, balse waa caalam kale oo goonidiisa u taagan. markaan ka waranno in ay xanuunsanayaan sida dadka oo kale, lama sheegin daliil ka hadlaya, maxaa yeelay malaa'igta axwaashooda iyo arrimahoodu waxay ka mid yihiin qaybiyaadka, waxaana waajib inagu ah in aan rumayno. maxaa yeelay malaa'igta rumayntoodu waa qayb ka mid ah qaybka rumayntiisa, waana tiir ka mid ah tiirarka iimaanka. alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa: aamana alrasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun. wuxuu rasuulullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyey oo yaqiinsaday wixii uu rabbigiisa subxaanahu wa tacaalaa u soo waxyooday. mu'miniintuna sidoo kale waxay rumeeyeen oo ay ku camalfaleen qur'aanka kariimka ah. kullun aamana billaahi wa malaa'ikatih. dhammaantoodana waxay alle subxaanahu wa tacaalaa u rumeeyeen rabbinimada iyo ilaahnimada iyo ku sifoobidda sifaadka jalaalnimada iyo in alle subxaanahu wa tacaalaa uu leeyahay malaa'ig karaamaysan. balse malaa'iguhu waxay u dhimanayaan sida ay u dhintaan noolayaasha kale ee kayrkooda ah, sida ay qurtubi iyo ibnu xajar raximahullah ay sheegeenna waxaa arrinkaas daliil u ah qowlka alle subxaanahu wa tacaalaa ee ahaa: kullu shayin haalikun ilaa wajhah. wax walba waa ay halaagsami doonaan oo waa ay dhammaan doonaan alle subxaanahu wa tacaalaa keligiisa mooye. manaawina wuxuu yidhi malaa'iguhu waa ay dhimanayaan marka loo eego naska iyo ijmaacaba, waxaana nafka qaadistooda u xil saaran malakulmowdka. malakulmowdkuna wuxuu dhiman doonaa malakulmowd la'aantiisa. lamana qariibsanayo in ay dareemayaan sakaraatulmowdka sida ay kayrkooda u dareemaanba. alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa: wajaa'at sakratulmowti bilxaq. qof walba waxaa u imaanaysa geerida sakaraadkeeda iyo shiddadeeda, waana mid xaq ah oo shaki uusan ku jirin. dhammaan khalaa'iqdu waa ay wada dhiman doonaan, xitaa malaa'igta iyo malakulmowdkuba calayhimussalaam. waxaa xadiis saxiix ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey ku soo aroortay in uu yidhi: idaa takallama allaahu bilwaxyi, markuu alle subxaanahu wa tacaalaa u waxyoonayo oo uu la hadlayo malaa'igta mukallafiinta ah ee u xil saaran, akhada almalaa'ikata qashi, waxaa malaa'igta ku dhacda suuxdin ama miirdaboolan. wa fii riwaayatin, riwaayad kalena waxay leedahay: idaa samicat almalaa'ikatu kalaamahu saciquu. malaa'iguhu markii ay maqlaan hadalkiisa waa ay miirdaboolmayaan. wa fii riwaayatin, riwaayad kalena waxay leedahay: samicat almalaa'ikatu ka jarri silsilati calaa safwaanin fayuscaquun. waxay malaa'iguhu maqlaan cod sida silsilad bir ah oo dhagax adag lagu kor jiidayo oo kale, markaas bay cabsi darteeda la wada miirdaboolmayaan. fa-idaa fuzica can quluubihim qaaluu, markuu malakuljibriil calayhi salaam soo maro oo miirdaboolmiddana laga faydo ayay waxay jibriil calayhi salaam ku odhanayaan: maadaa qaala rabbukum? rabbigiina muxuu yidhi? qaaluu alxaq. markaas bay malaa'igtii waxyiga loo soo dhiibay ku odhanayaan: xaq ayuu alle yidhi subxaanahu wa tacaalaa. fayunaaduuna alxaqa alxaq. markaas bay iyaguna ku naadinayaan: alxaqa alxaqa. alle wuxuu yidhi waa xaq waa xaq, iyagoo rumaynaya jibriil calayhi salaam hadalkiisa. فاللهم هون علينا سكرات الموت وثبتنا على الإيمان بك وبكل الغيب الذي أخبرت به جل جلالك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم،
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.